وحاران مقطع هذا soddon iyo shan sano Soomaaliya maxay wali uga bixi la'dahay wareegii colaadda qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta maxay dhalinyaro badan u dareemaan in mustaqbalkoodu mugdi yahay dambaal cusub oo Sheekh Maxamed Idriis soo dhigay Facebook ayaa su'aalahan dib u soo nooleeyay laakiin su'aasha waxay tahay daawada marunba waxa uu sheegayo mise waa hal aragti oo u baahan dood iyo falanqayn maanta waxa si qoto dheer u eegaynaa doodan hadda ka hor baa Sheekh Mustafa wuxuu yiri Soomaalidu waa dadka keliya ee dadkooda waalan dhageysta ma maqasheen warkaas aniga marka mid kale aan ku darayaa Soomaalidu waa dalka keliya waa dadka keliya dadka waalwaalan ee xukumaan ha iska qabtaan inta miirka leh maanta waxaan si qoto dheer u eegaynaa doodan kusoo dhawaada channelka oo anigoo ah Amiirka Waara haddii ay jeceshahay falanqaynta arrimaha Soomaaliya siyaasadda iyo bulshada subscribe saar channelka maanta waxaan falanqaynaynaa fariin muran dhalisay oo uu qoray Sheekh Maxamed Idriis waa fariin ka hadlaysa qabyaalad siyaasad dhalinyaro iyo halka ay Soomaaliya maanta taagan tahay aan bilowno haddii ay jeceshahay falanqaynta arrimaha Soomaaliya siyaasadda iyo bulshada subscribe saar channelka waxaan maanta falanqaynaynaa fariin muran dhalisay oo uu qoray Sheekh Maxamed Idriis waa fariin ka hadlaysa qabyaalad siyaasad dhalinyaro iyo halka ay Soomaaliya maanta taagan tahay aan bilowno qaybta koowaad sheekhu wuxuu leeyahay bulshadeenu waxay waqti badan ku bixisaa qabiil siyaasad isqabqabsi iyo murano aan xal u horseedin dadka wuxuu sidoo kale ka hadlay dhalinyaro badan oo aan shaqo helin qaar loo jiheeyo wadooyin qaldan fariintiisa waxay ahayd in haddii tamartaas loo weeciyo waxbarasho shaqo hal abuur iyo horumar in dalka uu ka faa'iideysan karo awoodda dhalinyarada tani waa aragti ay dad badan taageeraan halka kuwa kalena ay qabaan in arrimuhu ka adag yihiin hal sabab oo kaliya qaybta labaad marka aan eegno xaaladda Soomaaliya maanta waxaa jira caqabado badan amniga shaqo la'aanta kaabayaasha waxbarashada isbeddelka cimilada iyo adeegyada bulshada dhammaan arrimahaasi waxay saameeyaan nolosha shacabka sidoo kale waxaa jira horumaro laga sameeyay meelo kala duwan ganacsiga isgaarsiinta tiknoolajiyadda iyo adeegyada gaarka loo leeyahay laakiin su'aashu waxay tahay daawada ma ku filan yihiin dad badan waxay qabaan maya qaybta saddexaad sheekhu wuxuu si gaar ah u xusay qabyaaladdu waxay ahayd qayb ka mid ah taariikhda bulshada Soomaaliyeed laakiin marka ay noqoto wax lagu kala qaybiyo bulshada ama lagu horumariyo dana gaar ah waxay noqotaa caqabad dhanka kale qaar waxay ku doodaan in xalalka waaweyn ay u baahan yihiin sharci adag maamul hufan iyo hay'ado awood leh labada aragti mid walba waxay leedahay doodeeda qaybta afraad dalal badan oo maanta horumaray ma aysan ku gaarin guushu hal maalin waxay maalgeliyeen waxbarashada warshadaha cilmiga iyo maamulka Soomaaliyana waxay leedahay dhalinyaro badan ganacsato firfircoon iyo fursado dabiici ah haddii si wanaagsan loo qorsheeyo wax badan waa la gaari karaa gunaanadka muuqaalka dhambaalka Sheekh Maxamed Idriis waa baaq uu ku muujinayo walaac uu ka qabo mustaqbalka dalka dad baa ku raacsan dadka kalena way ku kala aragti duwan yihiin laakiin hal arin ayaa muuqata daawada Soomaaliya waxay u baahan tahay midnimo waxbarasho shaqo abuur iyo hoggaan leh qorshe fog adigu maxaad ka qabtaa fariintan daawade ma kula tahay inay xambaarsan tahay casharo muhiim ah mise waxaad qabtaa aragti kale aragtidaada noogu reeb qaybta faalooyinka ha iloobi subscribe like iyo share mahadsanidin ilaahay ha xafido Soomaaliya iyo shacabkeeda سحتي واي سحتي حاران مقطع واي واحد لحنيا شيخ انا اكون شيرت وحاران مقطع واي هذا صوماليا سنة داف ابار بدك هديري ابارت كجرت مبنانا حاران مقطع واي تدوات وزير انه مشارع سيو يدو ضدكو ايجاجسي اما مدحوينه هذا جوهان اما مدحوينه كوريا كيف ورنا ابارها وصومالي فرماجو هذا نوح روا انه مركله نقضو تدوبات وزير iyo ku xigeen iyo dawlo Soomaaliya ma qaadi karto hada aniga Iran maxaan ku lahaa waa 19 wasiir wadamada adduunka ugu qaniisan qaarkood waa 12 wasiir 15 wasiir waa marka meesha mashaqo in la qabtaa rabaa mise mushahar inta loo qoraa mushaharka si kale loogu qori karaa dadka qabiilka si kale mushahar loo siin karaa Soomaaliya hadii qabiilkan wax la siina qabiil wax lama siiyo waa magac
marka run baa la rabaa in loo hadlo runta in laysu sheegaa la rabaa marka inta aniga aan ka hadlaa waa intaas anigu dadka damiirkoodan ku hadlaya wiilka bajaajta jooga afkiisaan ku hadlaya gabadha suuqa joogta oo yaanyada dhiganaysa afkeedaan ku hadlaya oo aan gaari karin oo aan gaarsiin karin anaa gaarsiinaya wixii igaga yimaadana waa u dulqaadanaya oo weyba igaga yimaada ma garanaysa aan u dulqaadanaya laakiin waamur bilmacruufi wanha can ilmunkari wasbir calaa maa asaabaka ina dalika min casmi alumuur waxaan u arkaa waajib inay tahay isaaran oo ilaahay i weydiinaayo igala xisaabtamaayo inaan sheego bayaan inaan caddeeyo iyagana waxaa waajib ku ah inay dhegaystaanoo haddii warkan iyo taladan ay sax tahay ay qaataan say ku qaadi kartaa adduunka world bankaa ku leh IMFaa ku leh dad adduunka xisaabaha iyo hay-adihiisaa ku leh oo qoraya oo maalin walba qoraya war soomaaliya ma qaadi karto bajetka intaa leeg bajet ma haysato xaggeen uga keena aniga mushaahar xaggeen uga keena ii sheegada xaggeen gawaari uga keena xaggeen waardiye uga keena muxuuse soo saaraya muxuu ii soo saaraya muxuu dadkan soomaaliyeed u soo qabanaya waa inaan isu qiyaasaso laakiin haddii aan iska ay tahay waxii la rabo ha la sameeyo dee waa la samayn karaa adeero marka aniga qolo aan gaar ku dhaliilo aanu haddaan kuu sheegaya bal hadda saan khudbad hore ku sheegayba 25 sano hadda u dambaysay dadkii madaxda soo noqday ama siyaasadda soo galay oo heer wasiir iyo ka sare ilaa madaxweyne ilaa wasiir wasaare anuu dadkaas maba qabo way fashilmeen maba qababa in Soomaali ay wax u qaban karaan ama ku soo noqdaan ama xukun dambe loo dhiibaba ma arko waa laga yaabaa qaar fiican inay ku jiraan ma diidayo laakiin aniga hadda maba kala saari karo laanno fashalku waa cumulative waa la wada fashilmay ya fiiri waxaa lagu qiyaasaa ummadaha growthku yacni korriimada dhaqaale waddanka maxay noqonaysaa haddii aan rabno inaan kaj garayno oo adduunka aan la tartamo oo sida meelaha kaleeto oo waddamada nala mida ah oo soo kabanaya ay waxayaan waxaa la rabaa growthkeennu inuu gaaro ama korriimadeenna dhaqaale inaan gaarsiinno baa laynaga rabaa wax soo saarka boqolkiiba 10 iyo ka badan 10% iyo ka badan inaan gaarsiino 9% iyo ka badan inaan gaarsiino baa laynaga rabaa oo sidee ku gaarsiin karayna dee waa inaan wax soo saarnaa waa inaan beertii ka shaqaynaa waa inaan baddii ka shaqaynaa waa inaan mashruucyo samayno dowladdii ay samaysay wax la soo baxdaa oo wasaaradii ay shaqeeyaan oo dadkii Soomaalida khubarada ah u yeerataa oo shaqaysiisaa oo wixii maalgelinaysa korriimadeena dhaqaale marka shaqadii baa badanaysa wax soo saarkii baa badanaya GDP-geeni baa kordhaya ya qofka Soomaaligana wixii gaarayay baa kordhaya